Assalaamu calaykum ku soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeena iyo ogaalka caalamka. Maanta waxaynu ka hadli doonaa macluumaad ku saabsan qaar ka mid ah xayawaanada dunida. Sida aan ognahay, xayawaanada waa kuwa ku kala duwan dabeecadahooda iyo qaab muuqaalkooda, yacni jismi ahaantooda, sida kuwa waaweyn, kuwa yaryar, kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban. Haddii lagu weydiin lahaa keebaa ugu weyn xayawaanada, waxaa laga yaabaa inaad isla markiiba ku jawaabto maroodiga, balse jawaabtu sidaa waa ay ka duwan tahay, ama arrinku sidaa ma aha. Xayawaanka ugu weyn xayawaanada waxaa loo yaqaanaa blue whale ama nibiriga buluugga ah. Waa mid ka mid ah xayawaanada ku nool badda. Xayawaankani aad ayuu u weyn yahay. Waxa uuna culayskiisu gaarayaa 180 tan oo culays ah. Waxa uu ka weyn yahay isku darka 22 maroodi ah. Cabirka wadnihiisu waxa uu ka weyn yahay mid ka mid ah gawaarida raaxada. Halka xididiisa qaada dhiigga ay yihiin kuwa aad u balbalaaran oo waaweyn, kuwaasoo hal qof uu ku dhex dabaalan karo isagoon wax ciriiriya dareemin. Xayawaankani blue whale ama nibiriga buluugga ah ayaana loo aqoonsan yahay kan u weyn dhammaan xayawaanada ku dul nool koonka. Xayawaanada oo dhan waxaa caado ah inay dhalaan oo ay tarmaan. Shinnidu waxay ka mid tahay cayayaanada leh la yaabka gooniga ah ama cajaa'ibta aadka u badan. Shinnida dhadig waa mid ka mid ah kuwa ugu taranka badan dunida. Waxaa la tilmaamaa in mid ka mid ah shinnida ay dhalin karto ilaa 1500 oo kun maalin gudaheed ama hal maalin oo kaliya. Waana tiro aad u badan runtii marka loo eego qaabkay u dhalaan xayawaanada kale. Sida aan ogsoonahay, cayayaanada yararka ah waa kuwo laga helo meel walba oo caalamkani ka mid ah. Balse 3 meelood haddii aad booqatid oo ka mid ah dunida tan, kuma arkaysid wax quraansho ah ama cayayaano yarar ah. 3 meelood ayaa kala ah Iceland, Greenland iyo qaaradda barafka ee Antarctic. 3 meelood tegitaankooda ayaa ka dhigan ama la micno ah inaanan is arkin nooc walba oo quraansho ah. Bacteria waa mid ka mid ah ilma aragtada ugu badan dunida, kuwaasoon lahayn cadad ama tiro go'an oo ay leeyihiin oo lagu yaqaano. Waa cayayaan aad u badan oo meel walba oo dunida ka mid laga helayo, taasoo ka dhigtay in xayawaan walba oo dunida ku dul nool ay la nooshahay kumanaan ka mid ah bakteeriyada caalamka. Qiyaasaad la sameeyay ayaa lagu sheegay in dunida ay ku nooshahay in ka badan 6 trillion bakteeriya ah. Caarcaaradu waa mid ka mid ah cayayaanka laga helo dunida, waxayna leedahay noocyo fara badan oo kala duwan. Inta badan waxay ku nooshahay geedaha dushooda iyo carrada. Sida la og yahay, caaradu ma ahan mid aad u weyn ama aad u dheer xajmi ahaan. Caaradii ugu weyneed abid ayaa ahayd mid lagu arkay dalka Argentina. Caaracaradana ayaana lagu magacaabaa ama loogu magac daray Majaranji. Dhererkeedu wuxuu gaarayaa ilaa 50 cm.